السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي aad baa idin salaameynaa meel walba caalamka aad ka joogtaan maanta waxaan doonayaa inaan in yar idinso hargeysada cusub bartan taaganahay waxa la yiraahdaa rugsan weeyaan waa qaybta masallaha weeyaan maanta waxaan doonayaa inaanu bartaas aanu galno hargeysada cusub caynka ay u egtahay aan isla eegno bartan isagana waxa ku yaala masaajidkii Sheekh Mustafa Sheekh Shuyuukhda Sheekha qof walba oo Soomaaliya u faa'iideeyay diinta u faa'iideeyay cilmi aad u fara badan marka waxaan doonaynaa saaxiibayaal guryaha aadka u quruxda badan inaanu galno bal mariya saaxiibayaal waayahay saaxiibayaal waxaanu ku dhex jirnaa waa isla gudihii rugsan guryaha aad ay u fara badan yihiin waxaan doonaynaa mid ka mid ah guryaha inaanu galno oo isla eegno bal na soo raaca way mudane ambaru maanta hadan ku shaqeynaya guryo waxay ku leeyihiin nambaradan aad arkayso kan waxa weeyaan waa 62 iyo 63 waa laba guri oo isku furnay laakiin waxaan galeynaa 62ga ina mariya soo saar bartan waxa ku galaya ilaa laba gaari toos baan guriga galinaa ina mariya ma sha Allah markii ugu horeysay baa indhahaygu waxay qabteen fadhigan aad ka quruxda badan leh adiga iyo family-gaaga buu ka badan yahay fadhigan aad buu qurux badan yahay waa markii ugu horeysay guriga soo gashaba waa si runku u dhaha qabanaya amba fadhiga saa u taqaanaan fadhigan isaguna aad buu qurux badan yahay meel kale aadayna ina mariya maanta xaggan baan ku mushaaxayna ina mariya waayahay waxaan oo kuraasa waxa weeyaan waa qaybtii cuntada weeyaan xaggan idinku iska fadhiya kiciimaysid kijidiina waa tan iyadu bartan baa lagaaga soo dhiibaya xaliimay soo dhiib ka jiro wid dhac joogaas waa fadhiya qalbiga ku masruuf okay bartana waa qol hurdo weeyaan kabadhkii dharka aad ku ridanaysiina waa kan waa diyaar weeyaan waay sariir laba nafar xagan iyaduna taala jiifkeeda ka helay nice skeer saxraata labaan dabaqii hoosinta san kaga nimi waa dabaqii labaad aan korayna bal namariya iyadana bal waxay hayso waayahay wadabaqii labaad baan joognaa isagoo qolaalkiisa iyo fadhigiisuna waa kan way iswataan keeban ku horeynaa makaamsa kan xagga waxa taala sariir nafra yani waxa loo dhisaan garay tabtii qurbaha weey qofkii tagay si fiican buu garanay ismeedhan yani waa dalkii ama magaaladii Hargeysa sidana xagga ba iska irtaagsan marka xoogaa buuqiyana diiradda ma sha Allah ubadka quruxda badan ee ciyaariya iska daawanaysa baaskiilada ku ciyaaraya waayahay waxaan soo gaadhnay hurdo kale ma kuraasteedii leh hurdadii hore waan ku qaldabay waxaana karaatay hurdo sax tii hore waxay hurdo iska caadi jawigeedu degan yahay waxa xagga waxa yaala kabad leeg gidaarka dhan ee qolka inaba caadi ma ya xaggana waxa yaala waa kuraas weeyaan kuraas كم بحث يصير خصنا سنة أنت وردوا كقوانين سيا أم بيت تسكق قرآن ويا هاي حاجة نوح كل مرايدير بكل يوم تات صوب حيصو أتكسر بسنة سو شو يش عشان حاجة نوح كوبيا اللي وسولي يسوونه ويا واي واو 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 isla waxaan ku jirnaa hada waa qolkii hurdada weey meeshii aad ka leersanaysay waa balkoon weeyaan barta waxaad ku arkaysaa waa jaarkii weeyaan jaarkayga waan idin salaamay wala markaa soo toosto mudane amba muru barta waxaan kaga nimi waa dabaqii labaad weeyaan ka saddexaad baan korinaa aan isla eegnaa balka saddexaadna
maxaa lagu hayaa kii ugu sareeyay saan filino ayaan imika nimi isaguna fadhigiisu waa kan barta hal qol baa ku yaala ayaa la yiri halka qol baan isagana isla eegina laba hurdo hore waan isla soo aragnay balkana wuxuu yahay ayanu eeginay waayahay saaxiib kana waa hurdadii saddexaad iyo dabaqii saddexaad iyo dabaqii ugu sareeyay kuna darso oo hurdayaal kale waan isla soo aragnay habeenba kaad fahmi weydo aad iska imanaysaa waa iska soo guuraysaa waayahay واسكو ضميد حقا راحada xagaan waxa ku yaala kabar isaguna aad u weyn waa sidii kii hore isla aragnay oo kale laakiin hadaba qolkan muxuu ka duwan yahay qolalka kale kan wuxuu leeyahay isaguna balkoon kale oo isaguna aad u weyn waa dabaqi ugu sareeyay meeshii ugu sareysay weeyaan waa isku wareeg weeyaan qolka ugu sareeyay hurdadu waa isku wareeg weeyay isagu صاحبيال برتن iyadu waxa weeyaan beer aad u weyn waxa yaala kuraas noocaas oo kala aad iska fadhiisanayso amba wax ku akhrisanayso amba ku cuntaynayso beertan iyadu waa doog weeyaan doogana ma aha kii roog aha waa doog caadi weeyaan dhirtana waa dhir caadi weey ma aha dhirtii artificial ka ahayd amba gacan ku samayska ahayd ma sha Allah waa natural weeyaan beertan iyada aad u goontahay maalin walbana waa la waraabiya way waxa kale oo xusin mudan xaafadan waxa ay ku taalaa masallaha qayb kalena waxa ay ku taalaa jigjigeer xaggan waxa ay u dheedahay airportkii waxa kale oo dhow masaajidkii sheekheeni weynaa ee Sheekh Mustafa agab walba waa loo dhameystiray haddii noqoto parkingkii gawadhida haddii noqoto security haddii noqoto gymkii haddii noqoto beerihii ay ubadku kugu ciyaariyeen iyo beerihii aduba aad ku nasan lahayd iyo haddii noqoto supermarketadii aad wax ka iibsanaysay haddii noqoto farmasiigii wax walba way u dhameystiray